agaasimaha guud ee gaafan electronic power ayaa ka warbixiyey waxqabadyada kala duwan ee ay bulshada u qabteen, waxa uuna sharaxaad ka bixiyey si qoto dheerna uga waramay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen iyo kaalinta waxqabad ee ay u qabteen bulshaweynta Somaliland. Axmed Maxamed Cumar Jeex oo arrintaasi ka hadlay. gaafan police station waxa la aasaasay tiidinkii ilaa mudaan wadnay dhismaheega oo ay taamira qaatay bridge iyo baarkinada iyo habeynta standardka ahayd ee aan u sameynay awgeed. gaafan police station gaafan company group waxa uu bixiyaa police stationkii, car washkii, supermarketkii, tire service iyo organcherkii iyo electric power oo aan sanadkii ugu dambeeyay kusoo kordhinay. waxyaabo fara badan aan wadankii u qabanay, qiimo jaban aan kusoo kordhinay light 24 hours ah. sida horta ka muuqata ama ay bilicda meesha ama waxqabadka meesha waxaa ka mid ah bridge-kaas ama baarkinka naga horeeya. bridge-kaas waxaan kusoo kordhinay qaab qurux badan oo aan u sameynay oo wax dherer ahaan haddii imkaan ka hadloo kale waa 82 mitir iyo badh, ballac oo kale 12 mitir iyo badh. qaabkiisa iyo ama waqtigiisa uu guarantee yahay ilaa adigu 56 years above ayaa uu guarantee yahay marka bridge-kan oo kale. wax maaragtay waxyeelaa oon anigu ku hayno shacbiga ama aan wadankii kusoo kordhinay ma jirto. waxbaad u qabateen mar walba isleenahay ummaduna way ogtahay waxyaabaha aan u qabanay. marka bridge-kaas ka mid yahay waxqabada oo ay ka geysatay ama xukuumad ama another person kale ma jiro. gaafan company ayuunbaa service qabtay, isagana u danahaa, shacabkana u danahaa, wadankana u danahaa. istaa kalena waxa uu sharaxaad ka bixiyey kaalinta waxqabad ee ay ka geysteen wadada halbowlaha ah ee isku xidha Hargeysa iyo galbeedka Somaliland. gaafan power run ahaantii waxaanu asaasnay 2015 January. wadanka markaanu aragnay sida ay electricity ku yihiin shirkadahan electric waxaanu aragnay waxyaabo fara badan oo competition aan jirin, qiimihii oo aada u sareeya, dadkii oo aada uga cabanayo oo aan leerkii on 24 hours ahayn. sidaa awgeed waxaan kusoo kordhinay qayb electricity power. electricity powerkaas servicekii oo 24 hours waa gaafane electric power. qiimihii oo jaban 0.6 baan u qoraanaa sida caadiga ah. weli in Somaliland ama Hargeysa gaar ahaan caasimadda ayaan ku koobanahay, balse laakiin regionska ama goboladan waxaan ku rajo weynahay sanadada soo socda inaanu station ka furno. Hargeysa lafteeda aanu station ka furno sanadkan dhamaadkiisa ama sanadka ku xiga. servicekeegana aad bay dadku ugu qanacsan sidaan run ahaantii adinku laftiinu aad ka warhaysaan. shacbi weynahana waxaan ugu bushaareynayaa in station fara badan aan u furi doono sanadka soo socda insha Allah. xaafadaha magaalada Hargeysa halkan waxaan ku gaarnaa jijkay haddii aan control ka Hargeysa galbeedka uga baxay ka soo bilaabo controlka waan shidnaa. halka waxaan ku gaarnaa wadadan wadnaha oo ahayn madaxtooyada agteeda waxaan ku gaarnaa shabac motors. halkan waxaan ku gaarnaa halka wadada ay fi akhris kaga dhacaan iyo boqolay bataku. waqooyigana waxaan ku gaarnaa fooqa baaska kor baan u dhaafnay. marka waa masaafo aad balaaran run ahaantii dad badanna waan service ka qabanaa. way jirtaa oo kaalmo fara badan wadanka way ka dhisan yihiin, laakiinse in run ahaantii dadkeen waa dad ka soo noqday qaxoonti, ka soo noqday waxyaabo fara badan, rehabilitation fara badan sameeyay, kobac fara badan sameeyay, haddii xaggii waxbarashada tahay, haddii xaggii ay tahay bulshada, haddii tahay ganacsigii. marka waxaa jirta qaabka uu company-gu u soo jiito dadka ama aan dadkan u kasbanay waxaa ka mid ah qaab dhismeedka shirkadda gaafan police station. wuu ku diwan yahay qaababka kale ee ay shirkadaha kale u dhisan yihiin. run ahaantii dadkeenuna ma qadariyaan waxa la yidhaaho baarkinka
balse laakiin gaafana police station waxaa leeyahay baarkinka isku weer ahaan intaad arkaysaan buleegiya cabirkiisu hargeysa waxaa filayaa caasimadda la baarkin ma jiro marka waxyaabahan kusoo kordhinay everything waad ka heli kartaa waa 24 hours shidaalkii allahu mustacaan iyo laydhkii iyo carwashkii cafeteriyadii supermarketkii mar walba waa available wax walbana waad keenaysa kaalinta gaafane police station ayaa ku caan baxday waxqabadyada kala duwan iyo horumarka dalka sidii ay bulshada iyo macaamiisheeda kala duwan u raali gelin lahayd mar kasta. cabdiqaadir habane, shabakada caalamiga ah ee wajaalana news.net, wararka magaalada Hargeysa.